waa maxay dimuqraadiyad? Ereyga dimuqraadi waa laba eray oo af-Giriig ah oo kala ah dimo oo macnihiisu yahay dadka iyo karatii oo macnihiisu yahay xukun. Marka labadaas eray la isku daro, macnahoodu waxaa weeye xukunka dadka. Demokratii, taasoo macnaheedu yahay in awoodda xukunka ay ka timaado dadka. Dimuqraadiyaddu laba nooc ayay u kala qaybsantaa oo kala ah dimuqraadiyadda tooska ah iyo dimuqraadiyadda dadban. Dimuqraadiyadda tooska ah waa marka dadka oo dhan ay codaynayaan si ay go'aan u gaadhaan. Dimuqraadiyadda aan tooska ahayn waa marka dadku ay doortaan wakiilo iyaga matala, kuwaas oo iyagu go'aanka gaadha iyaga oo ka wakiil ah dadka sida baarlamaanka oo kale. Laakiin dimuqraadiyaddu macno weyn ayay leedahay. Dimuqraadiyaddu ma ahan oo keli ah in 4 sanaba hal mar dadku ay wax doortaan oo markaasna la doorto dadka wax xukumaya. Dimuqraadiyaddu waa nidaam ballaadhan oo wada shaqaynaya. Dimuqraadiyaddu waa marka ay wada shaqaynayaan sharciyada dalka u yaalla, dadkuna ay leeyihiin xorriyado iyo xuquuqo aasaasi ah oo fara badan, kuwaas oo ku qoran bayaankii caalamiga ahaa ee xuquuqda insaanka. Sidoo kale, marka ay shaqaynayaan maxkamaduhu oo ay madax bannaan yihiin, iyo marka hay-adaha dawladdu ay ku shaqaynayaan sharci. Marka habkan oo dhan uu wada shaqaynayo, ayuu jiri karaa nidaam dimuqraadi ah. Waddamada adduunku waxay u kala baxaan waddamo dimuqraadi ah iyo waddamo keli-talis ah, demokratii oo dictator. Haddaba si waddan uu u noqdo waddan dimuqraadi ah, waa in waddankaasi uu leeyahay sharciyo iyo dastuur la isticmaalo. Dastuurka iyo dimuqraadiyadda. In waddan uu dimuqraadi ahaado, waxaa shardi ah in waddankaasi dastuur iyo sharciyo lagu maamulo. Haddaba sharciyada waddanka Sweden uu ku shaqeeyo way noocyo badan yihiin. Waxaa jira sharci lagu qaado qofkii dembi gala, iyo sharci lagu maamulo iskuulada, iyo sharci lagu xukumo dalka oo dhan. Sharciga ugu muhiimsan ee waddanka Sweden lagu xukumo waxaa la yidhaahdaa dastuur. Dastuurku wuxuu ka hadlaa sida dalka loo xukumayo. Dastuurka waddanka Sweden wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood oo muhiim ah, waxaana ka mid ah: 1. Habka xukuumaddu ay u shaqayso regeringsformen. 2. Dastuurka habka dhaxaltooyada successionsordningen. 3. Dastuurka xorriyadda daabacaadda tryckfrihetsförordningen. 4. Dastuurka xorriyadda ra'yiga yttrandefrihetsgrundlagen. Haddaba waxaan si gaar ah uga hadli doonaa labada dastuur ee ka kala hadlaya xorriyadda daabacaadda iyo xorriyadda fikirka ee waddanka Sweden. 4 dastuur ee Sweden waxaa si gaar ah dadka oo dhan u khuseeya labada dastuur ee ka hadlaya xorriyadda daabacaadda iyo xorriyadda ra'yiga. Labadaas dastuur waxay nidaamiyaan xorriyadda warbaahinta, sidoo kalena waxay xadeeyaan xorriyadda warbaahinta. Dastuurka xorriyadda daabacaadda waa mid da'weyn oo beri hore ayaa la soo saaray, waxaana la soo saaray 1766, halka dastuurka xorriyadda ra'yiga la soo saaray 1992. Dastuurka xorriyadda daabacaadda wuxuu maamulaa buugaagta, joornaalada iyo wargeysyada,
halka dastuurka xorriyadda ra'yiga uu maamulo idaacadaha, TV-yada, internetka iyo warbaahinta casriga ah. Haddaba marka dadku ay leeyihiin xorriyadda daabacaadda iyo xorriyadda ra'yiga, waxaa jira shuruudo aasaasi ah oo la doonayo in la raaco. Shuruudaha muhiimka ah ee warbaahinta. Shuruudahaasna waxaa ka mid ah: 1. Waxaad xaq u leedahay inaad daabacdo joornaallo, wargeysyo iyo buugaag, iyo sidoo kale inaad ra'yigaaga ku faafiso raadiyaha, TV-ga iyo internetka. 2. Dawladdu waa in ayna baadhitaan ama koontarool hordhac ah ku samaynin waxa aad ku daabacayso joornaalada, wargeysyada iyo buugaagta, ama se aad ku faafinayso raadiyaha, TV-ga iyo internetka. Marka dawladdu ay koontaroolayso waxa aad qorayso ama waxa aad faafinayso ka hor intii aadan waxba faafinin ama waxba daabicin, waxaa loo yaqaanaa sensuur. Taas beddelkeeda, dawladdu waxay baadhitaan ku samayn kartaa wixii aad daabacday ama aad faafisay. Markaasna waxa aad daabacday ama aad faafisay haddii uu dembi yahay, markaasu dawladdu dembigaas ayay kugu dacweyn kartaa oo waxaa lagu horgeyn karaa maxkamad. Laakiin waxaa si sharci ah loo baadhi karaa ka hor inta aan la soo saarin filimaanta, sababta oo ah filimaanta qoysaska oo dhan ayaa daawada. Sababtoo ah filimaanta ayaa lagu xadidaa, oo waxaa jira filimaan loogu talagalay dadka waaweyn iyo filimaan loogu talagalay carruurta. 3. Sidoo kale waxa aad daabacayso iyo fikirka aad faafinayso shuruudo ayaa ku xidhan, oo wax allaala wixii aad rabto iskama qori kartid ama iskama faafin kartid, ee waxaa jira shuruudo la raacayo. Shuruudahaasna waxaa ka mid ah: in waxa aad daabacayso ama aad faafinayso uusan khatar ku ahayn amniga qaranka. In waxa aad daabacayso ama faafinayso aysan ku jirin qabiil nacayb, jinsi nacayb, isir nacayb, diin nacayb, ama nacayb aad u muujiso qof ama dad gaar ah. In waxa aad daabacayso ama aad faafinayso aysan ahayn hanjabaad. In waxa aad daabacayso ama faafinayso aysan ahayn aflagaado iyo cay aad u jeedinayso qof ama dad gaar ah. Haddii markaas waxa aad daabacayso ama aad faafinayso aad ku xadgudubto shuruudaha sare ku qoran, markaas maxkamad ayaa lagu geyn karaa. Haddii maxkamaddu ay kugu hesho in aad dembi gashayna, xabsi ama ganaax ayaa lagugu xukumi karaa. 4. Hay-adaha iyo shirkadaha warbaahinta sida TV-yada, idaacadaha iyo joornaalada waxay leeyihiin qof mas'uul ah oo mas'uul ka ah waxa joornaalka ama TV-ga ama idaacaddu ay qorayso ama ay faafinayso. Qofkaas mas'uulka ah waxaa loo yaqaanaa ansvarig utgivare. Markaas haddii joornaalka ama idaacadda ama TV-ga uu ku xadgudbo shuruudaha aan sare ku soo sheegnay, markaasi qofka mas'uulka ah ayaa maxkamad la saarayaa, isaga ayaana lagu xukumi karaa haddii joornaalka, TV-ga ama idaacaddu ay dembi ka gasho warbaahinta. Laakiin qofka shakhsiga ah waxa uu faafinayo isaga ayaa mas'uul ka ah. Tusaale ahaan, qoraalada, sawirada ama filimaanta la soo geliyo Facebook-ga, qofkii soo geliyey ayaa mas'uul ka ah. 5. Waxaad xaq u leedahay in aad la hadasho warbaahinta, sida in qof wariye ah uu interview kaa qaado, isla markaana aad isqariso oo aad noqoto anonyme. Sida marka aad ka hadlayso dhibaato ka jirta goobta aad ka shaqayso ama goobta aad degan tahay, isla markaana aad doonayso inaad hadasho oo haddana aad isqariso. Sidoo kale waxaa mamnuuc ah in hay-adaha dawladda iyo shirkadaha ay isku dayaan inay ogaadaan qofka waraysiga bixiyey,
oo markaasi hay-addii iyo qofkii isku daya inuu ogaado qofka waraysiga bixiyey dembi ayuu gelayaa. haddii markaas hay-adaha ama shirkadaha ay ogaadaan qofka waraysiga bixiyey, waxaa dhinaca kale ka mamnuuc ah in qofkaasi ay ciqaabaan oo shaqada ay ka eryaan ama mushaharka ka yareeyaan ama ay si uun u ciqaabaan. taasina waa mamnuuc.